السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن سلام صاحبي الحارج إننا نوعنتين halka waxaan kula wadaagi doonaa ilaa 6 qodob oo hadii la raaco ku sahlayo barashada luqadda Englishka. waana qodobo inta badan la isticmaalo markii qofka uu yahay beginnerska ama bilowg u yahay. ciwaanku waxa waaye best steps to learn English. talaabooyinka ugu wanaagsan markaad baranaysid luqadda Englishka. Step by step, talaabo guide for beginners and learners. qofka bilowga ama qofka luqadda baranayo oo muhiimka u tahay inuu maro. Step kood maxaa waaye? Number 1, build a strong foundation. qofka markuu luqadda Englishka baranayo waa inuuna waxa la yiraahdo raac noqonin oo dad luqadda Englishka baranayo oo ka horeeyo intuu iskala qabsado asaga meel dhax ka bilowdo ka bacdina luqadna ku adkaadko isla meesha uu ka niijo. marka build strong foundation maxaa laga wadaa? meesha ugu dambaysa ka soo bilow. marba hadaad luqadda Englishka aad baranaysid meesha ugu dambaysa ka soo bilow. learn basics, alphabet, symbol, vocabulary. qof waxa arkaysaa weligiis ABC da dhiganin laakiin wuxuu leeyahay ABC waan aqaanaa iga booti xogo kor meelaha yar kor iga bilow. laakiin muhiimadu maxaa waaye inaad soo barat alphabets like capital letters, small letters, sida lagu dhawaaqo xarfaha waxay ka soo bilaabataa ABC da ka soo bilaabataa iyo sida loo qoro. marka waxaa muhiim ah inaad baratid basic inaad soo baratid. symbol ka bari erayada bilowga iska fudud, numbers sida lambarada like 1 2 3 4 5 ilaa 1000 ka gaaraysid. colors red, black, yellow. days maalmaha 7 days in a week, Saturday, Sunday, Monday. inaad soo barta maalmaha waxay yihiin. greeting wax yar oo la isku bilaabo. how are you doing today? good morning. waxa soo yar baratid. practice pronunciation daily. inaad sida lagu dhawaaqo maalmo kasta aad barato xarafka ku celcelis aad barato. start with short sentence. inaad ku bilowdo jumlooyinka gaagaaban e.g. my name is Ali, my name is Muhammad, what's your name? laakiin hadaad adigoo ABCD soo dhigin xoogogii bilowga soo dhamaynin, hadaad arday xoogo farta la qabsato buugi qalinka isla helay hadaad la ka bilowdo waxay halkaas aad kala kulmi doontaa ama inaad kala kulanto ay macquul tahay niyad jab. ka bacdina aad aragto luqad adag inay tahay kadibna aad meeshii kaga dhaqaaqdo. dadna qaar waxay aaminsan yihiin luqadda wadanka looga hadlo oo luqadda wadanka ka soo jeeda hadaad joogin inaad baran karin. tusaale ahaan luqadda English hadaad Mareykan English joogo UK Britain ama England iyo America hadaad joogin waxay dad qaar aaminsan yihiin in qofku luqadda baran karin. dad Mareykan joogo oo Ingiriiska joogo ayaa waxa luqadda bara dad Afrika ka tagay. macallimiin professor Afrika ka tagay ayaa jaamacadooda luqadda ku baro oo culture ku baro oo linguistic waxa la ku baro language ku baro. marka qofkii dadaalkiisa ku xiranta waxan waa language. qofna uma dhalan qof language luqadda qof iska la malaha. luqadda waxay tahay waxyaalo Ilaahay dadka baray ka mid tahay magacyada iyo luqadda iyo waxan Ilaahay dadka baray ay ka mid tahay. marka dad gaar uma laha waa loo kala badan yahay loo kala horeeyaa laakiin qofka xor buu yahay luqadda rabo uu baran kara qof bini'aadanka. qodobka labaad maxaa waaye? improve listening and speaking. qofka inuu kobciyo dhageysiga iyo hadalka. listening marka maxaa waaye? ama muuqaal luqadda English ku baxay ahaado ama audio oo MP3 waxa loo cod bas ah oo ku baxayo luqadda Englishka ahaado. qofku waa inuu 2 eray 3 eray wax ka qaban karo. eray inuu ka qaban karo. tusaale TV Al Jazeera daawanaysa, newska la akhrinaya ama dood English daawanaysa, qalin book bahaysta oo inaad erayaha qaar wax ka qori karto. taas marka waxay ku sahlaysaa inaad marka dambe listenkaaga sida waxa u dhageysatid luqadda inaad wax ka dhageysan karto. iyo speaking sida loogu hadlayo erayada soo isku xiraayo body language waxaas inaad la qabsato. listen every day. maalin walba dhageyso radios raadiyaasha dhageyso kuwa luqadda English ku baxa. waxaa kaloo dhageysanaysaa stories sheekooyinka podcast waxa la yiraahdo bariya YouTube ka bilowday. podcast maxaa waaye? iska idaacad yar oo online waaye. dadka qaar oo specialist oo meelaha xirfadaha gaar lagu casuumaa YouTube ka xataa wajira channel caadi podcast ku qortay ku soo baxaysa channel caadi ah motivational kuwaas ugu fiican. YouTube clips-yada YouTube ka kuwa hada wacdiska kuwa waxay qabaan waxa la yiraahdo subtitle oo ciwaano hadalkii hoos baa lagu qoraa.
sidoo kale practice speaking si inaad practice gariso speaking sida lagu hadlo with friends saaxiibada English clubs waxaa jiro iskuulka marka la joogo ama meelaha qaar inaad group samaysatiin English club maalmaha kulantiin dood wadaag noqotiin or yourself ama adiga laftarkaaga aad ka dhigto qof la hadla tusaale qolka cilaad galaysa meel ba istaagaysa muraayad waxaad ka dhigaysaa qof dad la hadlaayo oo dad hor taagan waa hadlaysa marka mawduuca soo qaadanaysa caafimaadka siyaasiga mar iska dhigaysa mar macallin iska dhigaysa marba waxba iska dhigaysa use simple dialogue adeegso conversation dialogue is like conversation marka simple dialogue isticmaal like greeting salaan buying food cunto la gadayo salahan dukaan baad ka dhigaysa wax dukaan gadanayo buying food cuntada you purchase the food cuntada macnaha baycinaysa kan meeqa waa inta iga dhin macnaha waa acting gareynaysa waa jilaysa asking direction ama waxaad iska dhigaysa qof direction weydiinayo oo intaan ka baxayo intuu masaajidka ku yaala meel hebel suuqi aaway waxaas camal number 3 grow vocabulary and grammar waxaa muhiim ah inaad vocabulary ahaan xagga erayada iyo grammar ahaan inaad kor u socoto maalin meesha ku joogto maalinba eray baro tusaalaan bishi waxaad samayn kartaa maalin walba 5 eray iyo macnood inaad barato maalin kale 5 eray macnahooda haddana 5 eray si jumlo loogu isticmaalo learn 10 new words baro maalin walba 10 erayood oo cusub daily maalin walba and use them in sentence kuna isticmaal jumlooyinka maalin walba markaad luqad baranaysid book baa haysataa book 10 eray baad ku qoraysaa macnahooda baranaysaa sida jumlo loogu isticmaalana waad ku isticmaalaysaa waad ku baranaysaa focus on common grammarka qaar waxaa jira muhiim laga maarmaan ah iyo qaar laga yaabo marka dambe aad luqadda barata inaad ugu tagto soo kuwa ugu muhiimsan laga maarmaanka commonka inaad barato muhiim waayo like tusaalahaan present wixii maanta la jooga past wixii la soo dhaafay and future tense iyo wixii loo sii socdo mustaqbalka waa present tense past tense future tense ka dambe saddexdan ayaa wax ka kobcay each afar ka farcamay tusaalahaan present tense afar ka farcamayso past tense afar ka farcamayso future tense afar ka farcamayso maxay noqonayaan marka to all of noqonayaan 4 times 3 marka saddexdan markaad fahamtid present past and future tense markaad fahamtid kuwan kalena simple ay ku noqonayaan ku fududaan for example I eat rice every day waxaan cunaa bariis every day maalin walba hadda every haddaad meel ku aragtid waa present because waa present continuous wax maalin walba soconayo meesha idkii xarfahan si loo bedelaad baranaysaa markaad future markaad tense ka baranaysaa it haddaan ku u bedel past tense maxay noqonaysaa ate ay noqonaysaa waa sidoo maraysaa I ate rice yesterday shalay ayaa waxaan cunay bariis haddii noqoto future maxay noqonaysaa I will eat rice bariis ayaan cuni doonaa tomorrow beri maxay noqonaysaa iyada waa future marka saddexdan haddaad baratid you are growing grammatically waa qof maxaa noqonaysaa oo socda kadibna tenskaas ka farcamayo way ku fududaanaysaa inaad barato lambarka 4 practice reading and writing qofka inuu practice gareeyo si wax loo qoro iyo si wax loo akhriyo luqadda Englishkan baranaya waxna ma qoraayo macquul ma noqonayso waa inaad maalinkii ama isbuucii 2 jeer inaad sheekayar qori karto marmarka qaar my best friend my remember day maalinteeda xasuusta wax bale aad iska qori kartaa sheekooyinka gaaban ama the day that I will never forget maalinta aan weliga iloobeynin so practice reading sidoo kale buugaag yar la soo gataa oo iska beginners haddii aadan garan karin online ku jira iyadoo PDF waxa ku qoraysaa reading books for beginners marka way ku soo baxayaan PDF raacinaysa marka way ku soo baxayaan marka buugtaas dad nool iska qasam ma marka inaad fahantid ereyga buug wax akhriis inaad fahantid kaliya maxaa waa inaad akhrin karto maalinta waxaan akhrin kartid waa maalinta macnihiisa aad baratay soo macnaha qofka wax sheeg inaad barato waxa ka horeeya horta inaad akhrin karto start with short story ku bilow sheekooyinka gaagaaban newsyada ama wararka children books iyo buugaagta carruurta waa meesha ugu muhiimsan waaye qofka hadduu adult iyo luqadda baranayo buugaagta carruurta waa unusla cunuga kale noqonayo write simple sentence qor jumlooyin iska fudfudud
about your day maalintaada ku saabsan macnaha maalinta waxaad qabatay ama waxaad qaban rabto waad qori kartaa in a paragraph paragraph ka dhigaysaa cutubyo oo 5 cutub 2 cutub ku saabsan maalintii waxaad qabanaysay waxaad qabatay ama waxaad qaban doonto ilaahay yiraahdo. Example, today I went to the market. Maanta waxaan aaday suuq. I bought a vegetable. Waxaan soo gatay khudaar. It was good day. Maxay ahayd maalin fiican. Birina maxaa dhihi jirtaa today I went to the mosque. Maanta masaajidkaan aaday. Hay maxaa ku xigay 3 jumlo 4 jumlo saas u qoraysaa. Okay, jumlada stepka shanaad maxaa waaye practice daily consistency wax la yiraahdo saki consistency وجوكتين إذا كي وجوش number 1 so practice daily واحد ما أنت قابين واحد قابين يصير هديها واحد بالكويت تذكر قار وحاوا إسك حيسة ليال وحيسة يجي عليهم وعمركو ما أنتوا جوان جاريا وحيرب ولا وكعيا وكلوا جاريا وكلوا جاريا مركا لمرة وسيف لبون يوح حساب قوس وقال مرة كان بخسيك هذا معنا مركا واحد وأنا واحد كده اكتب واحد جوان أقاطه consistency وأنا جوكتي سا practice 50 to 30 minutes every day 15 دقيقة إلى 60 دقيقة أنا جلست وقتك maalintii oo wax ku practice garayso wax ku qori kartid wax ku akhrin kartid mix the skills isku qas listen read write speak ana qofka waxna uu qori karo inuu wax dhageysan karo wax akhrin karo wax qori karo iyo inuu wax ku hadli karo waa isku xadarta adoo qoraayo akhrinaysa. Okay, daily practice is better than long weekly session. Inaad maalintii practice garayso waxay ka fiican tahay inaad asbuuc walba lesson dheer aad qaadato. cutubka lambarka 6 maxaa waayo oo inoogu dambeeya use English in real life. qofka inuu Englishka wax uu qabanayo uu isticmaalo xataa qasama xaafidin in English looga hadlo salahan waxaa rabtaa inaad jikada wax u doonato gabadha jikada kula jirta English ba kula hadlaysaa kabacdi fahmayda marka dambe Soomaali ugu bedelaysaa adiga English la iskaga hadalaa waxa soo baratay maanta practice garee. Change phone setting to English. lambarka telefonkaaga Englishka settingkiisa dad waxa jiraan af Soomaali ka dhigto so change maalin baad ka soo harbax marka dambe waa la qabsanaysaa so telefonkaaga settingkiisa English u bedel baarta meesha home page ha ahaato meesha call ha ahaato meesha message ka ahaato kabacdi waad baranaysaa marka think English ku fikir English not translate adoo xataa qasama inaad waxaan Soomaali ahaan u turjunto. Speak to friends saaxiibaha la hadal or online partners man hadda waxa jiro dad qaar online ka oo iyagana dad qabaan dad ay la practice garayaan maxaa laga helaa apps ka qaar laga helaa baalkan inay gabdhaha isticmaalaan muxuu magaciisa TikTok ma laha TikTok qaar waa laga helaa dad luqad English practice garayna marka qof la saaxiibto inaan practice garayna you can do that adii kala saaxiibkaaba oo isla barateen baa isla practice garayn kartaan marka 6 qodob waxaan rajeynayaa hadaad raacdo inay ku fududaan doonto luqadda barashadeeda ilaahay ka raala insha Allah wax walba oo waqti la gelinina way adag tahay ina waxa laga natiijo keeno marka waxa waa loo samaraa barashada 3 samar baa jiro oo ugu waaweyn samarka koowaad mid kamid ah samarada 3daas waxa waaye asawr aan taaliim qofku markuu wax baranayo uu arday yahay inuu ku samro waayo هذا إن سلام يا سلام الله تعالى وبركاته.